gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka wasiirada iyo safiirka Turkiga ee Soomaaliya u fadhiya guud ahaan diblomaasiyadda mudanayaal marwooyin assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh anigoo ku hadlaya magaca madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya wadana Maxamed Cabdullaahi Farmaajo anoo ku hadlaya magaca golaha shacabka ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo midka shacabka Soomaaliyeed waxaan u hambalyeeynaa dawladda Turkiga iyo dhammaan dadka reer Turkiga munaasabadda sanad guurada ka soo wareegtay 96aad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay jamhuuriyadda Turkiga shacabka Turkiga iyo shacabka Soomaaliyeed waxay wadaagaan xiriir soo jireen oo taariikhi ah oo ku salaysan is-ixtiraam is-aamin iyo saaxiibtinimo taas oo sii xoogaysanaysa maalinba maalinta ka dambaysa Turkiga waxay kaalin muhiim ah kaga jirtaa dib u dhiska Soomaaliya caawimaadka Turkiga ee dhinacyada kala duwan ah waxay muddig u tahay soo kabashada iyo horumarka Soomaaliya waan ugu mahadcelinaynaa aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin sanad guuro waxaan leenahay